السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت مقال كان أيان أوهد لدونا موضوع عادي مهم وهن لشينا كاسو التربية عروفتا sida wada ognahay halka ugu horeyso ee ubadku ka helo tarbiyada wanaagsan waa qoyskiisa hadba sida ay tahay akhlaaqda guriga ayuunbu ilmaha dibadda u soo baxaa waxaan tusaale soo qaadanaynaa in ay isdoortaan waalidyo ku haboon inay soo saari karaan jiil wacan oo islaamiya taasoo micnaheedu yahay in uu aabuhu doorto oori wacan oo diin leh isagoo tixraacaya axaadiista nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ee tilmaamaysa arrintaas oo ah in la doorto gabar diin leh sidoo kale in ay gabadha loo dooraanin wacan oo diini akhlaaq leh haddaba haddaan dib ugu soo laabto tarbiyada ilmaha waxaynu ugu baahan yahay qodobadan soo socda 1 in la baro ilmaha wax kasta faa'iido u keeni kara ifka iyo aakhiraba sida in la baro shahaadatika 2 in lagu talaalo qalbiga ilmaha jaceylka Alle iyo rasuulkiisa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyo asxaabtiisa 3 in la xifdisiyo suuradaha quraanka iyo aayadaha hadba inta uu kari karo 4 in salaada la faro marka uu gaaro 7 sano 5 in lagu rabbeeyo dahaarada sida weysada laguna ababiyo runta amaanada iyo xiriirinta qaraabada 6 in laga dheereeyo wax kasta oo saxayn kara qalbigiisa wanaagsan sida tiifiyada faafiya akhlaaq xumada musalsalada filimada iyo heesaha TV-ga waxaan dhihi karnaa waa barbaariyaha iyo macalinka aqoon badan iyo ubad badan oo muslimiin ah 7 barida akhlaaqda wacan waalidna ma siin ilmihiisa wax ka wacan akhlaaqda wacan 8 ku ababinta ilmaha geesinimada iyo daacadnimada 9 barida iyo ugu sheekaynta saalixiinta iyo culimada iyo dadka taariikhda wacan ku lahaa dunida laakiin maxaad ugu sheekayn hadii aadan adiga waxba dhaamin